Hobalka caan baxay ee Cabdiraxmaan Cabdullaahi Nuune oo loo garan og yahay Iidla Yare ayaa sheegay inuu nolosha ka soo bilaabay heer hoose isagoo ku soo barbaaray degmada Madiina ee gobolka Banaadir. Hooyadii oo ahayd qofka kaliya oo ay nolosha qoyskiisa ku tiirsanayd ayaa ka shaqayn jirtay iskuul la dhaho Baarbe, kaas oo ay ku gadi jirtay shaaha iyo waxyaabaha ay ardayda cunaan markii ay u soo baxaan nuska saacadaha iskuulka. Iidle ayaa sheegay in uusan isaga warigii waxba baran, waqtigii oo yarana uu caawin jiray hooyadii, maadaama keligii uu ahaa wiilka qoyska. Fanaan Iidle ayaa ka soo jeeda qoys danyar ah kaas oo la dalaadhacayay qutul duruuriga qoyska. Aniga waxba maan baranin waayo hooyaday ayaan caawin jiray. Waxaad wax baran kartaa markii la dabari karo nolosha, lana gadi karo buugta iyo dharka iskuulka. Hooya ayaana biilaysay, aabba waa uu xanuunsanaa wuxuuna ku tiirsanaa jiray dowladdii hore ee Soomaaliya, ayuu yiri Fanaan Iidle. Iidle oo ku soo barbaaray nolol adag ayaa markii ay hooyadii geeriyootay u tafaaxaytay in uu qoyskiisa ka faalo qaado noloshooda, isagoo hardanka nolosha ka bilaabay in uu aado magaalada Boosaaso. Intii uu ku jiray socdaalkiisa uu ka bilaabay magaalada Muqdisho ayaa inta uusan gaarin Boosaaso waxa uu shaqo ka bilaabay magaalada Gaalkacyo. Hooyaday markii ay dhimatay waxa aan go'aansaday inaan nolosha wax ka bedelo. Aabbo ayaa dhabarka iga dharbaaxay oo i dhahay dadkaaga Allah ha kaaga dhigo aabba iyo hooyo. Laakiin markii aan Gaalkacyo gaadhay waxaan bilaabay shaqo inaan raadiyo, ayuu yidhi. Intuu shaqada raadinayay waxa uu maqaaxi ku taalla Gaalkacyo ka bilaabay shaqo heer hoose ah, isagoo ka noqday shaqaalaha nadaafadda, balse isla markiiba biibato ayuu shaqo ka helay, taasi oo sheegay inuu ka qaadanayay lacag yar. Fanaanka ayaa intaasi ay u sii dheereyd in la garaaci jiray haddii uu bikiri jabo inta uu shaqada ku gudi jiro. Isagoo taasi sharaxaya ayuu yidhi, habeenkii markii aan qaadanayo lacagta ayaa jilib iyo feedha ila dhici jiray ninkii aan biibitidiisa ka shaqaynayay. Iidle oo gaadhay magaalada Boosaaso ayaa sheegay inuusan horey ka helin shaqo, balse habeenkii uu seexan jiray goobaha lagu iibiyo jaadka, kuwaas oo ku hooyin jiray markii habeenkii laga rawaxo. Waxa uu cuni jiray raashinka haraadiga ah amaba hambada laga soo reebo hodheelada cunnada lagu kariyo. Cunnadaasi ayuu u yaqiinay Tignico. Muddo kadib waxa uu la helay maqaaxi shaaha lagu kariya, taas oo ka shaqayn jiray lacagna uu ka heli jiray in muddo ah. Hase yeeshee wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu hagaagtay nolosha oo waxa uu noqday fanaan haddana caan ka ah fanka Soomaalida. Waxa uu sheegay inuu ku shaqayn jiray rafaad iyo lacag aad u yar, balse hadda uu halkii habeen ku shaqeeyo lacag dhan $1,000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السلام أصحاب الضمان أيامها وحباتي يسكجرو عدي أو تاريخ له هذا بعيد كوجو في كوجو اللي بنكاس بنزارو هاي أدلو ميلا أسكشجنا يبو هذا ما شلنا إلى فلزعب كيا وتاجي يعني كرنا هوية مركا وحوار كي عدة إني باش الوزارة إيه لكن طلبت خدمة والله عادي يضحك وحماي يا الوزارة أنا أبتسوس وشغلوس كل ما متي كرنا بيه اللي عليها بله تضامن على وقت أذوق بالعين براك أوباما يكيك محل أفونا كيكو مارجو ترام أديتنا كروس بيقول لنا تقنا يا يتوسكنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابك الدموع السلام وحيدي وضع مانتا أوسيس وحارب أنا دي شوقة صاحب كينا قالقة فنان كينا مرنا أوغاس كينا نوفر ديو أما سفير كينا نوفر ديو جيجو فنان كينا قالقة يا سيدري نانتبان كميران لها waxaa inoo jooga boqorkeen ilaaha boqor ahe fanaankeen qaali aan jecelnahay saaxiibkii Xariir Axmed waxaa idin leeyahay
taariikh 4 haluu soo yaacay insha Allah tigidda qaar way gadbeen ilaa 200 iyo konton gadantay inta kale waxa way keenayaan baash hoolka irbisa intii aad si qaadanaysana waxa waaye lambarka ana kor maamulka kulli ay kala xariisin laakiin habeenkaas anaa maqamalahan kulligeena xaadiraan nahay maqrib aan sii joogaa meesha tagana saaxiibkii xariir way ugu weyn yahay waan ugu weyn respecti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي قالي هذا السلام أقول وراء هذا عسك جرو جبكم في عندها وجد مسك حنوس صناعي ما تحب برضه يقصو كعدي مركعواي قوي ودرت سواي عندها مركعواي سان أبرسين بينك إيمانه مركع محاربها واليال إن والي نقل مدب ويسحوريين إن قبل دود وقروح بدنا ويهو صارتين وحان كعصنا والياش كلا دولة كلا باي بكل أيجان قبل دود وجرت كعب وجرت حصل صارتان وحان لهلا أيجان اللي هبقي أقول ريني أبي العثمان حصل صارتان قبل دود وجرت جا هيران حصل صارتان قبل دود وجرت على سبرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك دموع السلام وحيدي وضع مانتا أوسيس وحارب أنا دي الشوقة صاحب كينا غالقة فنان كينا مرنا وقاس كينا نوفر ديو أما سفير كينا نوفر ديو جيجو فنان كينا غالقة يا سيدري نانتبان كميران لها وحاي نوجو بقر كينا إله بقر فنان كينا غالقة نجعلنا هاي صاحبكي حرر أحمد وحيد الله تاريخ 4 haluu soo yaacay insha Allah tigidda qaar way gadbeen ilaa 200 iyo konton gadantay inta kale waxa way keenayaan baash hoolka irbisa intii aad si qaadanaysana waxa waaye lambarka ana kor maamulka kulli ay kala xariisin laakiin habeenkaas anaa maqamalahan kulligeena xaadiraan nahay maqrib aan sii joogaa meesha tagana saaxiibkii xariir way ugu weyn yahay waan ugu weyn respecti شكل أنكو سوى قدروا مكي شكل أنكو سوى ننكي توجد أفرع أحيان سدحان كل توس وقبتي وأسكفوا السيد دربوا إلا تكود إيجارين أفتمنى أبا ما حكوا تقانيه إيه جيز يا نسي ألقوا صد لي أو كيتبنا ثلاثين يا كيتبنا ثلاثين أيوة ما ذنب إنما ما كنت فقط قدر وإذا وليه ما يقول ذكر عدو بيمان قلنا إمالها ماك أنا باشا ذكر ما موجود ما حد بينها ولا بدبناه ذكر أنا باشا كمان ماك هاش عن كوذا شكل عن كوذا مداهم كوي معاه ما لو فان كذا